wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa xarig ka jaray xarunta waxbarashada gobolka Banaadir oo muddo 3 sano kadib dib loo hirgeliyay kaas oo qayb ka noqon doona xoojinta adeegyada waxbarashada waxaana daahfurka xafiiskani goobjoog ka ahaa hogaanada daladaha waxbarasho ee dalka. xaruntan cusub ee laga hirgeliyay degmada Xamarweyne ayaa ka kooban dhowr qaybood oo bixin doona adeegyada waxbarasho ee gobolka Banaadir si loo helo waxbarasho tayo leh oo bilaash ah iyo in laga baxo baahiyaha waxbarasho ee xilligan taagan. Mas'uuliyiintan ayaa kormeeray xafiisyada ay xaruntan ka kooban tahay waxayna bogaadiyeen in la dardargeliyo horumarinta waxbarashada caasimadda. gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir ayaa ka mahadceliyay xaruntan laga hirgeliyay degmada Xamarweyne. maanta waxaa maamulka degmada Xamarweyne farxad u ah horumarka ku soo kordhay oo ah dhismahan cusub u jeedin waxaa muddo ka socday dayactir xoogan iyo qalbayna lagu waday intaasna waxay u diyaar garoobaysay in maanta daahfurkeeda uu noqdo isla markaana waxbarashada gobolka Banaadir agaasinkeeda in maanta halkan xafiiskiisa dabaqan laga furo waa talaabo horumar leh oo degmada ay ku soo korortay. agaasimaha waxbarashada ee dowladda hoose Xamar Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Nuur ayaa ka warbixiyay xaruntan cusub iyo waxa ay qaban doonto. intaan si fiican uga ogahay oo wasiirka waxbarashada uu diyaar u yahay juhdi badan uu ku bixinayo in waxbarashada dalka dhan ay hagaagto meel fiican ay gaarto ana marqaati ka ahayn maadaama waxbarashada ka wada shaqeynaynay tilaabooyinkii fiicnaa ee la qaaday sanadahan u dambeeyay haddana khaasatan gobolka Banaadir in hawshiisa hore u socoto. gudoomiyaha ururka haween gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa ka mahadcelisay wasaaradda waxbarashada iyo duqa magaalada Muqdisho sida ay mas'uuliyad isaga saareen arrimaha waxbarashada. mudane wasiir habka aad ula shaqaysay gobolka Banaadir waa kaaga mahadcelinaynaa haddana haweenka gobolka Banaadir jazaakumullahu khayr. mudane gudoomiye adigana taariikhda ku xusi doonta waxa tahay maayirkii ugu horeeyay ee waxbarashada dul istaagay ma dhicin horta mana jirinin maanan haysanin muuqaalka maanta aan joogno waa kaaga mahadcelinayaa. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camri Jakeyti waxay ka mid ahayd mas'uuliyiintii goobta ka hadlay sida wasiirka oo hore u sheegay haddana uu sheegi doono in maamulka gobolka Banaadir sida dawlad goboleedyada ay xuquuqdooda ay u helaan dhanka waxbarashada. mudane wasiir aadan kaaga mahadcelinaynaa dadaalkaaga wanaagsan annagana waxaan rajaynaynaa in mustaqbalkii iyo noloshii ay tiinka dhalinyarada Soomaaliyeed ama caruurteenaba aan si wanaagsan ugu soo bixi doono. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ka hadlay sida ay maamulkiisa uga go'an tahay horumarinta waxbarashada. daladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka oo iskaashada waxaan rajaynayaa inay waxbarashada ubadkeena ay wax badan ka bedeli doonto haddii alle runtii daladaha waxbarashadu duruufo kala gedisan ayay u soo mareen ababinta iyo tacliinsiinta ubadkeena iyadoo duruufo adag ay jiraan oo iskuuliska ay lagu xayiro amni darro darteed oo ay suuragal tahay inay madaafiic ku soo dhacaan ayay mataqaanaa meelo badan xiran yihiin ayay u dhabar adeygeen inay ubadkeena ka saaraan jahliga. meeshaan maantay aan joogno waa xarun loogu talagalay waxbarashada gobolka Banaadir ama maamulka gobolka Banaadir oo ugu talagalay inay noqoto xaruntii waxbarashada gobolka. wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Bare ayaa faahfaahiyay dadaalka ay xukuumadda Soomaaliya ugu jirto sidii loo buuxin lahaa baahiyaha waxbarasho ee dalka jira. daan wasaaradda waxbarashada maxay tahay siyaasadda waxbarashada ee ku abaaran gobolka Banaadir. waxaan rabaa inaan qeexo in wasaaradda waxbarashada ay ka go'an tahay sida ugu dhaqsaha badan ugu xanuunka yar culayska ugu yar saari karo gobolka inaan waxbarashada gobolka ku soo wareejino gobolka
arrintaas arrin sahlan ma aha arrin mas-uuliyad weyn wadata waaye mana aha keliya iskuulaadka wasaaradda waxbarashada maamusho keliya in la wareejinayo waxaa la wareejinayaa wax walba oo la xiriiro waxbarashada ee laga dhex agaasimo gobolka banaadir nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.